Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamin daawadyaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Halkani waa channelka Xogaal Barnaamij fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, muuqaalkana like saar, siina share gareey. Daawadyaal sidaan la soconnaa xalay waxaa dhacay showgii Marwan Yare. Showgaas ayaa noqday show lagu fashilmay gabi ahaanba kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed isku midi ama dil iskugu geysteen halka showga ka dhacay. Ciidamada booliiska oo agagaarkaas ka dhawaa ayaa yimid showgiina sidaas ku banaday joojiyay raggii dhaawac ahayna halkaas waa laga qaaday. Showgaas xalay waxaa baajiyay dooreeyo iyo midi sidaad u garanayso ay isla dhaceen dhalinyaro Soomaaliyeed. Bal ila daabo muuqaal yar oo xalay laga soo duubay. booliisku waa kuwan waa soo galeen waa ujeediina u maleynaa hadda la joojiyey xafladiina waa la laabay dadaa meel dheer ka imaadeen waxaa xafladda loo joojiyeyna wax kale ma aha waxaa loo joojiyey waxaa waaye wiilal Soomaaliya toori isgeliyeen wallaahi Soomaali meelay joogta ma aragtay wallaahi waa dhibaato wallaahi qoryihii waxaa la soo qaatay dhashiikii ma la dhihi jiray gacmo maya bamba efon ay soo qaateen هيا ما يسخبنا ما شاء الله واسعينابا هيا مروان ادو سلامي ولاتي فان بروكس ادو فرحتي متعاون غالي انا ولاتي سوشيال ميديا كل ما سوى هيا عاون ما شاء الله ادو فرحتي كسو دواوا كلها ودك سويسرلاند ثانك يو سو ماتش ادو ادينا كسو دوينيا حفلتها عادي حفلتي سي كسو دوينا اني waxaan kusoo dhaweynaa tuulada aan ka tagay waddanka Switzerland tuulada ما شاء الله أنا دماغ أقول إيه سكري محلل هاي إسرائيلية بس أنا ديك إسرائيلية مين كينا هتطلبه sida arkaysaa muuqaalkaas waxaa lagu sharaxayaa wixii ka dhaca meesha ama wixii kale aad meesha kusoo aragtay. Daawadayaal showga markuu xalay la rabay inuu si fiican u qabsoomo ayaa waxaa dhacday mar qura in laba wiil oo Soomaaliyeed ay midiyo isla dhaceen iridda showgana isku dileen. ciidamada booliiska oo halkaas ka dheereen ayaa isla markiisa degdeg u yimid ambalaasyadii ayaa yimid Marwan Yare ayaa halkaas lagu qabtay xabsina xabadka loo dhigay lana seexshay. Marwan Yare ayaa hadda waxaa loo haystaa kiiskaas inuu asiga u sabab ahay in ay dhalinyaradaas is dilaan balse waxaa dhacday Marwan Yare inuu diidan yahay oo kiiskaasna uu leeyahay aniga waxba lagu kuma lihi dadkaas waa taageerayaashayda showgaas ayay rabeen inay ka soo qayb galaan ayagana ismidiyay anigana waxba kiiskaas dambiina kuma leeyahay. Marka daawadayaal sida hadda warbixino soo gaarayo ay sheegayaan in Marwan Yare xaaladiisa aad iyo aad u xun tahay ayna marayso meel aad iyo aad u xun. fadlan daawada channelka subscribe saar si aan kugu soo gudbino wax walba update oo ka socda Soomaalida insha Allah. halkani waa bar naga wada dhaxayso fadlan subscribe saar muuqaalkana like saar share gareey.